safarka aan ku tagay bariga dalka Uganda iyo booqashadii magaalooyinka Tororo iyo Mbale. Muuqaalkan waxa uu hadli doonaa juqraafiga, cimilada, beeraha, warshadaha iyo meelaha caanka ah iyo sidoo kale ganacsiyada ka jira gobolka bariga Uganda. Ugu horreyn waxaan ka soo dhaqaaqay magaalada Tororo ee bariga dalka Uganda oo ah meel hodan ku ah dhaqanka, quruxda dabiiciga ah. magaalada Tororo waxay ku taallaa bariga Uganda waxaana leeyahay dhulal kala duwan laga bilaabo buuraha dhaadheer ilaa dhulalka bacrinka ah. gobolkan ayaa leh isku dhafka kaymo cagaaran iyo dhulal barwaaqo ah, waxayna ka faa'iideysataa meelaha biyaha u dhow sida harada Victoria, taasoo gacan ka geysata horumarka beeraha. sidoo kale meelaha sare ee gobolka ay bixiyaan muuqaal qurux badan iyo cimilo qabow. cimilada gobolka Tororo waa mid qabow iyo diirimaad leh, iyadoo leh laba xilli roobaad oo waaweyn, mid ka bilowda bisha saddexaad ee sanadka Maajo ilaa bisha shanaad ee May, iyo mid ka bilowda bisha sagaalaad ilaa iyo bisha 11aad ee November. inta kale ee sanadka heerkulku waxa uu noqonayaa mid diiran, taasoo ka dhigaysa goob ku habboon beeraha iyo dalxiiska. isku darka roobka iyo qorraxdu waxay ka dhigaysaa dhulka inuu yeesho dhir badan, iyadoo gobolka uu guud ahaan leeyahay jawi qoyan oo deganaan leh. beeraha waa laf-dhabarta dhaqaalaha ee gobolka Tororo, iyadoo dhulka bacrinta leh ee cimilada ku habboon ay taageerto xulashooyin badan oo dalagyada ah. dalagyada ugu waaweyn ee laga beero waxaa ka mid ah mooska, galleyda iyo digirta, sidoo kale kasaafada oo laga sameeyo burka ama moxogta, baradhada iyo bataatiga. gobolku waxa uu sidoo kale caan ku yahay beeraha caleenta shaaha iyo qaxwaha, kuwaasoo ah kuwo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee dalka. beeraleynimadu ma aha oo kaliya hab nololeed marka la joogo gobolka bariga Uganda, laakiin sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha deegaanka, iyadoo beeraleyda badankooda ay ku tiirsan yihiin beero yaryar iyo ganacsiyada waaweyn ee beeraleyda. gobolka Tororo waxa uu leeyahay qayb warshadeed oo soo koraysa, iyadoo ay jiraan warshado badan oo qaabilsan soo saarista alaabta beeraha sida qaxwaha. warshadaha kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah soo saarista dharka, habaynta cuntooyinka. warshadahani waxay shaqo u abuuraan dadka deegaanka, waxayna gacan ka geystaan koritaanka dhaqaalaha gobolka. intaa waxaa dheer, warshadaha yaryar ee soo saara alaabaha farsamada gacanta, qalabka dhismaha. goobaha caanka ah ee Tororo waxa uu leeyahay goobo caalami ah oo mucjisooyin dabiici ah. qaar ka mid ah meelaha loogu talagalay in la booqdo waxaa ka mid ah harada Victoria, gobolkan oo kulaalaya harada ugu weyn ee Uganda, taasoo noqonaysa goob caan ah oo kalluumaysiga iyo doomaha aad ugu badan yihiin. sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha muhiimka ah ee la booqdo ee gobolka Tororo, kaydka xoolaha ama national parks. gobolkan waxa uu leeyahay kaymo iyo meelaha lagu kaydiyo xoolaha, kuwaasoo booqdayaasha iyo dalxiisayaasha siinaysa fursad ay ku arkaan duurjoogta dalka Uganda. muuqaalada beeraha badan ee ku yaala gobolka ayaa bixiya aragtiyo qurux badan oo ka mid ah dalka Uganda, sida dhagaxa weyn ee Tororo Rock. ganacsiyada magaalada Tororo waa mid soo koraya, gaar ahaan dalxiisku waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa dhaqaalaha, iyadoo adeegyada martigelinta, shirkadaha safarka iyo halwadeennada dalxiisku ka faa'iideystaan tirada sii kordhaysa ee booqdayaasha. ganacsiyada yaryar ee deegaanka sida farsamada gacanta, maqaayadaha iyo adeegyada gaadiidka ayaa sidoo kale ka qayb qaata dhaqaalaha firfircoon ee gobolka bariga Uganda. magaalada Tororo waa meel firfircoon oo horumarsan, laga bilaabo dhulka bacrinka ah, cimilada ku habboon, ilaa iyo warshadaha soo koraya dhaxalka dhaqameed. magaaladani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhulka kala duwan ee dalka Uganda. intii aan safarka kusii socday inta u dhaxaysa Tororo iyo Mbale, waxaan arkay dhul ballaaran oo doog cagaaran ah oo ay daaqayaan xoolo kala duwan sida lo'da, riyaha iyo idaha dabada dheer ee Uganda caanka ku tahay, taasoo muujinaysa inay aaggaan ku habboon tahay beeraha iyo xanaanada xoolaha, isla markaana leh cimilo wanaagsan iyo carro bacrin ah. ugu dambeyn waxaan gaaray magaalada Mbale oo xarun u ah magaalo firfircoon oo ku taal dalka Uganda. Mbale waxaa lagu yaqaanaa meel muhiim ah oo ku xeel dheer dhaqan hodan ah iyo kobaca dhaqaale. maanta aan sahmino juqraafiga, cimilada, beeraha, warshadaha iyo meelaha caanka ah iyo sidoo kale ganacsiyada ka jira magaalada Mbale. magaalada Mbale waxay ku taallaa gobolka bari ee dalka Uganda, iyadoo ku dhex taalla gobol leh buuraha dhaadheer iyo dooxooyinka cagaaran. waxaa ku wareegsan dhul beeraley ah, waxayna ka faa'iideysataa meelaha muhiimka ah ee loo maro, taasoo ka dhigaysa magaalo ganacsi oo muhiim u ah gobolka. juqraafiga magaalooyinka waxaa ka mid ah isku dhafka kaymaha, buuraha, dhul beero, iyadoo sidoo kale ay dhowdahay webiyo muhiim ah oo biyaha ka geysta waraabka iyo nolosha maalinlaha ah. magaalada Mbale waxay leedahay cimilo degan, iyadoo heerkulkooda uu guud ahaan yahay mid diiran sanadka oo dhan. xilli roobaadku waxa uu taageeraa dhirta, howlaha beeraleyda magaalada. xilliga qalalan oo ka bilaabma bisha December ee sanadka u dambeeya ilaa iyo sanadka cusub bisha 2 ee Febraayo waxa uu noqonayaa mid diiran. isku darka heerkulka dhexdhexaadka iyo roobka ayaa ka dhigaya Mbale goob muhiim ah oo beeraleyda
iyo howlaha bannaankaba muhiim u ah. Beeraha waa tiirka dhaqaalaha ee dhulkeeda bacrinka ah ee cimilada ku habboon ayaa suurtagal ka dhigaya xulashada dalagyada badan. Dalagyada waaweyn ee laga beero waxaa ka mid ah cassava ama maxog iyo bariiska. Uganda waxay ka mid tahay dalalka ugu sarreeya ee soo saara qaxwaha Afrika. Intaas waxaa dheer, beeraleyda xoolaha gaar ahaan lo'da iyo ariga ayaa si weyn looga faa'iidaystaa. Magaalada Mbale waxay leedahay warshado sii koraya, iyadoo warshado dhowr ah oo ka shaqeeya habeynta alaabaha beeraha. Warshadahani waxay soo saaraan alaabooyin cunto macmacaan oo laga sameeyo burka iyo saliidda iyo waxyaabo kale. Cuntooyinkan oo la cuni karo. Sidoo kale, Mbale waxaa ku yaala warshado yaryar oo soo saara agabka dhismaha, dharka, kuwaas oo gacan ka geysta gobolka bariga Uganda. Magaalada Mbale waxaa ku yaala goobo dhaqameed muhiim ah oo dabiici ah. Qaar ka mid ah meelaha ugu caansan waxaa ka mid ah buurta Mbale, goob qurux badan oo bixisa muuqaalka dhulka ku xeeran. Waa meel caan ah oo ay tagaan dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha. Goobaha dhaqanka. Goobahan waxa ay muujinayaan dhaqanka ay hodanka ku tahay magaalada Mbale iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan bariga Uganda. Magaalada Mbale waxaa ka socda koror ganacsi oo joogto ah sanadihii la soo dhaafay, taasoo ka dhalatay kororka dadka, dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha. Waxaa taageero noocyo kala duwan oo ganacsiyo ah oo ay ka mid yihiin ganacsiyada beeraha, ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa si weyn uga soo baxa magaalada. Laga bilaabo suuqyada maxalliga ah ee lagu iibiyo khudaarta cusub ilaa iyo goobaha lagu iibiyo dharka, qalabka korontada iyo agabka guryaha. Dalxiiska ayaa qayb muhiim ah ka ah magaalada Mbale, iyada oo u dhow meelaha dabiiciga ah ee keymaha iyo xoolaha. Ganacsiyada la xiriira dalxiiska sida hoteelada, shirkadaha safarka ayaa door weyn ka ciyaara dhaqaalaha magaalada. Adeegyada gaadiidka. Iyada oo meel muhiim ah lagu wareego adeegyada gaadiidka oo ay ku jiraan basaska, taksiyada, shirkadaha logistikada ayaa ka qayb qaata isku xirka dhaqaalaha magaalada. Darka barwaaqo beereed, koror warshadeed, hodantinimo dhaqameed. Haddii aad booqanaysid magaalada si aad uga ganacsato ama aad ugu nasato, juqraafiga magaalada, cimilada iyo ganacsiyadeeda ayaa ka dhigaya qayb muhiim ah oo ka mid ah horumarka dalka Uganda. Mbale waxay tusaale u tahay sida magaalo iskugu dheelitiri karto kororka casriga iyo qiimaha dhaqameed, taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah mustaqbalka Uganda. Ku soo biir boggeena Tugalo View oo sii gudbi muuqaalkan iyo muuqaalka xiga. Ismaqal dambe daawadayaal.